Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay wararku ay sheegayaan in Turkiga uu siiyay diyaaradaha dagaalka oo ah nooca aan duuliyaha lahayn isla markaana aad ugu wanaagsan difaaca amniga hawada sare ee dalka Soomaaliya. Diyaaradahani la siiyay Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in tiradoodu ay gaaraysay ilaa 4 nooc oo aan duuliye lahayn waxaana magacyadooda lagu sheegay Bayraktar Kanji kuwaasi oo ah diyaarado casri ah oo uu farsameeyo Turkiga isla markaana howlgallada dhaadheer fulin kara sida lagu sheegay bayaanka. Waxaana wararku ay sheegayaan awoodda howlgalka diyaaradahani inay gaarayaan in hawada dhaqdhaqaaq ay ka sameyn karaan ilaa 7500 oo kiiloomitir iyadoona intaasi ku fulin kara howlgallo kala duwan oo baaxad leh muddo saacado ah. Waxaana diyaaradahani ay awoodaan in ay ilaa 12 saacadood hawada ay ku jiraan sida ay tilmaamayaan xogaha. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay sheegtay in ay isku diyaarinayso tababaro kala duwan oo ciidamada cirka Soomaaliya la siinayo iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada cirka ee Soomaaliya dadaalo kala duwan ay ka sameynayeen dhanka hawada isla markaana howlgallada iska kaashanayaan ciidamada cirka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada ka taageera dowladda dhanka iyo hawada ay duulaano kala duwan ku qaadeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolada dalka. Howlgalladaasi oo ay sheegtay Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay si wada jir ah u fulinayeen ciidamada cirka Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibada caalamiga ee garabka siiya ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya. Diyaaradahani ayaana waxa ay awood u leeyihiin in ay cirib tiraan gabi ahaanba goobaha ay ku sugan yihiin cadawga sida lagu yiri bayaan dhawaan ka soo baxay dowladda Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya waxa ay ka taageeraysaa dhanka hawada iyo sidoo kale dhanka tababarida ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan sida Dowladda Federaalka Soomaaliya ay horay u sheegtayba. Waxa ayna heshiisyo kala duwan oo iskaashiga dhanka amniga iyo sidoo kale wax soo saarka Dowladda Federaalka Soomaaliya ay la leedahay dalka Turkiga taasi oo sare u sii qaadaysa taageerada Turkiga ee dowladda dhexe.